المرسلين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. geeridu waa xaq oo dadku waa dhimanayaan. daartanina waa daarul ibtilaa walimtixaan ee way kala xanuun badan tahay. caalamul-islaam ama dadka muslimiinta geeridii ugu xanuunka badnayd oo dadkii joogay markaa radiallahu canhum laysku dhex yaacay. geeridii waxay ahayd nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam waa geeridii ugu weynayd oo ugu naxdinta badnayd, ilaa ay arrintu gaadho cumar bnu khadaab almuxadatu lmulham uu maaragtay meelay ku kala baxeen bay ahayd isaga iyo abubakar sidiiq. waa abubakar sidiiq war fadhiiso oo dadka ka aamusu yidhi, isna leeyahay sidii nebiyullaahi muuse iyuu tegay waana soo noqonayaa. geeridaas horta ugu xanuun badnayd. geeri badanna waa dhacday. marka sheekh cabdinaasir aad baan isu naqaanay, aqraan baan ahayn, saaxiib baan ahayn. rixladii u dambaysoon wada gallay waa rixladii aan ka bilownay garawa oon burtirla ku marnay, gaalkacyo, galdogob, aan sii marnay buuhoodle, markii dambena aan ku qatinay laascanood kal hore ahayd. waa rixladii ugu dheeraydoon israacnay. raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa nin sheekha oo diinta ilaahay baray, intii ilaahay uga calfay oo xaqa sheega buu ahaa. xaqa waa caddaynaya oo fatin ah, caqli badan oo fahmi badan oo naxariis badan iyuu ahaa, oo mudaalacasho badan. waxyaalaha kula yaabay waxaa ka mid ahaa, waxaanu ka baxnay garawa, waxaanu soconnaa gaalkacyo, waxaan sii maraynay burtille. intii aan jidka ku jirno gaadhigooda joognay oo aan dabcan inaan sheekaysanno, sheekada naga joojiyo yidhi kitaab baa la bilaabay. jidkaana ku sii jirnaa. kitaabka lagu dul akhriya, isagaa lagu dul akhriya, isagaa fasiraya, marka annaguna waa dhegaysanaynaa. abyaad wey, wakhtigiisa waa ilaalinaya. nin aad iyo aad u dadaal badan buu ahaa. waa kaftami jirnay markaan naduubaadka iskugu nimaadno oo laba habeen nala joogo odhanayaan waa soconayaa. markaas war meeshan laascanoodina maxaa kugu aasay sheekh cabdinaasirow? hadalladan ku odhan jiray bay ahayd. ilaahay mantiqadaas ama magaaladaa aad buu u jeclaa sheekhu. hadalladina dhex mari jiro kaftanka aan ku odhan jiray weeye. marka arrintan dilka ah waa musiibo guud. waxaad ogtihiin dadka soomaalida waxaa ku socda dil caam ah. qof kastaa la dilayaa. dil caama baa ku socda. dilkii ugu naxdinta badnaa hadda sheekhaadeenna ugu naxdin badane waa dilkii ka dhacay beled weyne asbuucii hore oo ummadda dhani ku googo'een, ay baaba'een, ay tirtirmeen. cadaab soo degay weeye yaa ummaddan haysta. soomaali waxaa ka socdaay dad badan bay qubuur noqotay. dil baa ka socda. sheekha marka raxmatullaahi calayh hadalku waa kooban yahay. muddo dheer baan isnaqaanay. saxwadii hor u ahaa. waxaan ka taxseenayaa soomaalida dhammaan, sababta sheekha caam uu ahaa. soomaalidao dhammaan, dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda joogaan ka taxseenayaa. waxaan si khaasa uga sii taxseenayaa saxwadii islaamka oo hormuudka ka ahaa, dadkii hormuudka ka ahay oo arkaanta u ahaa. sababtoo askartii saxwada ka socotoo gashay ciidamada yuu ku jiray, sidii haddaba sheekh axmed uu ka warramay. waxaa kaloo si khaasa uga maaragtay taxseenaynaa reer sool. waxaan si khaasa uga sii taxseenaynaa reer laascanood. waxaan si khaasa uga taxseenaynaa qoyskiisii, haweenkiisii, caruurtiisii oo laga naxay. waxaa ku daran haweenka iyo carruurta yaa ugu liita. marka aniga hadda geerihii soo gaadho waxaan ku idhaahdaa war carruur ma lahaa, waxba carruur maliga dila maba ka naxebaano. laakiin markii la yidhaahdo haweenku ka tegey,
caruurta ugu daran nin sheekoo la dilay oo mantiqadan ku aasanay bal caruurtiisii qabriga isugu nimid mise indhaha dhiig baa ka saaray dhiig ma yseexan marka waa musiibo guud wey aad iyo aad marka sheekha allah u naxariiso ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u baryaynaa inuu shahaado uga dhigo ilaahay shahaadaha uga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala waa arxamu raaximiin waa ra'uufu raxiim laba cadaab iskugu kulmin maayo haddii qarax lagu googooyey ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay baan subxaana wa tacaala iyo dadkao dhan ilaahay bay hortegayaan waad la socoteen 10kii wadaadadkii dilayba way dhinteen hadda qubuur baa lagu wadi jiraa saraakiishii golaha sare ee qoorta casayd oo wadaadada 10ka laayay oo qubuurtoodiina qariyay ilaa maanta lama yaqaan meel ku aasan yihiin iyo wadaadadii iyo dhammaan maanta wax weeye min asxaab alqubuur way ilaahay bay xurfadhiyaan subhanahu wa ta'ala arinta dagaalku wuxuu ka socdaana هذا الشيخ أحمد بطابته دعوة إلى الله دين كان إسلام كان شيخنا كما حدنا جماعة كما حدنا تذكر كما حدنا إلهي بإلي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دينكم محفوظ وأهل قبلة وحرم يسنى هاي عاوة دي دمشق نقول ماضو إن يهين مسلمين وكفار يا مرتدين مدينتهم كل حجرين راسو حليلو ورسو ساس ما ساس يعني إلهي كبقى والآخر دين كبقى والعلومة ما ركت لا تشضع ودتك وحكرنا لا تشضع ننكي كدقاقي أمضة وعندها وها ومسكحة وها وعلومة ووحبري هي كي أقويان كاها iyo kii ummadda kale kaxaynaya hadaynu kallayno xakee ummadan loo wadaa ummadda meel la aasal raba dhamaanteed oo leeyahay Soomaaliya meesha ku noolaan jirtay maxaa warku sidoo socdaa muxuu yahay muftadiisu ayaa waxaan ka dambeeyay ayaa wada ayaa tamwiiliya ayaa riixaya ayaa ummadda laynaya in la isweydiiyo weeye ayaa sameynaya inaga waxayna saaran saxwa islaamiya dadka muslimiinta dadka Soomaalida waa dad muslimiina taariikhii hore oo dhan waqtigii taraawiishta iyo intii ka dambeysay in ka horeysayba taariikhii la qoro gaalada nasaaradu qortay waxay yiraahdeen Soomaaliya waa asal raac waa dad quraanka aad dad inaga xifdi badan quraanka ma jiro ummadda noocaasa waxay nooga baahantahay inaan u naxariisano inaan wax barno inaan layno inaan ciqaabno inaan cadaabno معها طوما لا يكتسنا معها بناء ذكر معها شرع الإسلام كنا وحني وحو أقوليه معه وحلا مغلي جرينا أبدا معها فركا وحو دردار ما يا صحوة بالذات تذكر الدعاء هذا شيخ أحمد عبد الرحمن والدي لي وهذا سعتين شيخ عبد الرحمن شيخ عبد القادر والدي لي وحدوكتين بيكوغي waxa ka dhashay waxyaalo aan la yaabay marka fiiriyay saxwadii baa sii faaftay oo culumadii baa sii batay oo baraarugii baa batay oo meelaan la gaadhin baa la gaadhay oo markan hadda ku soo wareegnay kal hore aad iyo aad baan u yaabay oo waxaan aad u la yaabay bidaad oo le iyo laascanood oo laga sheekay sheekhe juhuud badan ku bixiyay culimo kale oo jooga marka diinka islaamkii waa diin ilaahay subxaanahu wa ta'ala ballan qaaday inuu ilaaliyo waxa lagu ilaalinayaa inaga leenagu ilaalin marka saxwada dhalinyarada haweenka dhammaan tujaarta waxaan u dardaarmayaa diinka islaamka ku dhaga diinka islaamka aan faafino culimo aan noqono intay suurowdo waa cilmigii waa qaybsamaya qolada beeca ka shaqaysanaysa tujaarta cilmiga beeca ha bartaan
هذا وحكي الزور أنت تكلنا صلاة أم برنو أكو عمل فلو صوم باصوص هذا صوك أم برنو حج باصوص هذا أنت حجيس حجك هبرتو كل بشيء بأيمنا يوسي خاصة وبكون نقنيا صلاة يدوا جوكتو فرض العين بكون نقنيا ديك إسلام كمركا أم برنو وطن كان ينقى دكان نيل ما ركتي شيخ لدلي ينين كلو دينتا يدد القرحيي وحال الله وحوينا ياريا من طور مجرو هدين نقو إلهي سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وحال الله عد وحنا ياري كرتا عد أن كبقينو من طور مجرو صحوة دينك إسلام كفافينينا وحين ما ركتي كلنا قضاء وقدرا ووحي إلهي قدري عيد أنو قد شوك سنينو عيد أنو قد تقينو من طور مجرد شيخ عبد الناصرنا قضى نحباه إلهي وحانو وبرينا من قبر قيسة وولقو روضة من رياض الجنة إلهي دنبي قيسة ولافه إلهي إنو كدق الشهادة إلهي إنو أفصح الروح قيسة جنة الفردوس يعني إلهي وبرينا reer kana waxaan u baryaynaa Ilaahay subhanahu inuu Ilaahay sabir siiyo waa geeri aad iyo aad u xanuun badan Soomaalidu waxay ku maahmaadaa geeri waxay ku fiican tahay inadan geeri jiriyan inadan aqoon bihiraadan Sheekh Naasir marka casarkii markii la ii sheegay soo kacay waan urday waa qayr u shaday oo isku dhaxyaacay saaxiibkay buu ahaa waa wada had jirnay waa wada tashan jirnay waliba khaasatan labada sheekh markay dhinteen intii ka dambeysay isna isaga soo wici jiray anna mar baan wacay sida qadiyadii waaga dhaweyd qoladii shacabkii raxweynta ahaa waa ka wada hadalay iyo waxyaalo kale oo badan marka raxmatullaahi calayhi waqtigiisii weeye dadku waa wada dhiman doonaan nin joogaya ma jiro waxa weeye waxaanu dardaarmaynaa saxwada islaamka khaasatan dadkii guud ahaan waa sheekh caam u ahaa khaasatan reer laascanood guntiga dhiisha intaas kaga dhigtaan sidii kan hore nagu aragay ka sii badiya mashaayikh badan baad leedihiin dacwo badan baad leedihiin cilmigii waa garanaysaan masjid kasta بعد المغرب وين بوحسما إنه وين كتينا صلى الله على محمد وحكنا كتريا نك وحاسمي أما ضدك وحاصو فكري إلهي هلاك تقدق الله سبحانه إله هو بابي إله هو سبحانه وتعالى نغفرحي باب أوغي هلاك أوغا إله وحا كدن بي إله هذا قرانا هذا علام قيوبة أنا قريتها سياتا وما عدا إله وحا كدن بي إله هلاك حسن البصري بان كلمتيسو كسو كوبيا وهو من سادات التابعين علما وعقيدة وعملا باوح الله ورمي حجاج بن يوسف ددكي waa dhameeyay eber ku ka dhigay markaas Allah marka culumada waxa jirtay inta kicin jabhad ku kiciyay dawladii Abdul Malik oo isaguna marka barasab Ciraaq ahaa marna uu joogay halkan Xijaas markaas uu yiri inna hajajan adabun wa adab عذاب من الله وعذاب نقصودي فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم أكهرتجينا وقعنا كلهرتجينا لكن بالتضرع والاستكانة إلهي وخشوعة إلهي وتضرعة إلهي برية مركي الله صار شيء إلى حاجات وادين طيب هذا الكي مهدلين سجود الشكر والركوع كناعي شاغل سجود وتذكر دبي بكمية موقت marka inaga maanta wax kale oo inoo furan ma jiro ilaahayna barina akhru leelka ilaahayna nu tadarrucno dacwadana waa ku mitidayna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in